xarunta dadamiska ayaa maanta laga dhagax dhigay magaalada Laascaanood waxaana u adeegi doontaa bulshada deegaanka waxayna qayb ka tahay qorshayaal maamulku doonayo in shacabka loogu dhaweeyo adeegyada kala duwan ay u baahan yihiin waxaana si wada jira maanta u dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Sool maayirka degmada iyo hoggaanka fulinta dadamisyada Somaliland ugu horeyn munaasabadii lagu dhagax dhigayay xarunta dadamiska ee ay yeelan doonto magaalada Laascaanood waxa ka hadlay maayirka degmada Laascaanood Cabdi حسين تارولة. waxaan dhagax dhigaynaa xarunta dandamiska ay yeelan doonto magaalada Laascaanood si aad ogtiin magaalada Laascaanood maalinta ka dambaysa way sii balaaranaysaa way sii fidaysaa marka maanta waxa la dhagax dhigayaa xaruntii abid ugu horeysay ee yeelato dandamisa magaalada Laascaanood xarunta oo noqon doonto xarun weyn oo standara oo si wacan u qalabaysan qalabkeedii ciidankeedii buu dheeyahay waa guul soo hay'atay guud ahaan shacabka ku nool magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Soolba saad la socotaan dabku waa aafo haddaan degdeg lagu gurmin wax badan buu yeelaa ummadda iyo mujtamacada dad iyo dunyada marka xaruntii maanta laga bilaabo way furmaysaa wata la dhagax dhigayo hawsha aynu halkan u taaganay oo ah dhagax dhigayo bilowga dhismaha xarunta dadamiska degmada Laascaanood iyo gobolka Sool oo xarunteedii bay isku noqon doontaa hadii la ka dhigo sida uu qorshuhu yahay dhagax dhigan waxa isaguna barbar socda bilowgii dhismaha oo dhammaan kharashka ku baxaya 100% dawladda Jamhuuriyadda Somaliland ee hormoodka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay kharashkiisa bixisay isla markaana qandaraaskiisa hore loo qaatay oo shirkadii qandaraaska qaadatay oo kharashkiina gacanta ku haysatay goobtan inala joogto aad iyo aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii ciidan dadamiis ahaan inaan xaruntii u horeysay ee Laascaanood laga hirgeliyay abid aanu maanta shirkadda dhisaysa xaruntan dadamiska Laascaanood oo lagu magacaabo 24 Construction Company oo uu u hadlay injineer Caawil Cagjar ayaa sheegay in muddo kooban ay ku dhisi doonaan xaruntaasi anigoo ku hadlaya afka shirkadda dhisaysa qandaraaskan dadamiska waxaan u mahad celinayaa maamulka gobolka maamulka degmada iyo taliyaha guud ee ciidamada dadamiska agaasimaha sida quruxda badan ee ay shirkaddan u soo dhaweeyeen ay ugu dadaaleen inay Laascaanood noqoto magaaladii saddexaad ee dadamis loo dhiso runtii wax aad lagu farxo anagu ka shirkad ahaan waxaan ballan qaadanaa waqti muddo aad u kooban inaanu ku dhameystiro dhismo aad u qurux badan oo dhismaha labaad ee ugu quruxda badan Somaliland inaanu halka ka soo saaro ayaanu ballan qaadanaa oo uu noqon doono wax dadka iyo gobolka ugu dambeyntii waxa isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeede doonayaal kulay maanta maalin weyn waxaan u maleynayaa waa mashruuci shanaad aynu sanadkan inta dhamaaday 2020 aynu sugu nimaadno gobolka Sool taas marxaati waxay ka tahay horumarka iyo horsocodka deegaankani oo hore ugu talaabsaday ilaahay baa mahad iska leh maanta halkaas aynu joognaa waxaan u maleynayaa shalay waxay ahayd sida taliyuhu sheegay ilaa 200 qof oo shaqaale ah ayaa sanadkan la qaatay 152 qof oo shaqo qarana kontimeeyo bileysa 25 kan imika aan ku jirno waxa la yiraahdaa ciidanka dandamiska tagadi qalalayd baa la dhax dhigay mashruuca GBLG-ga ayaa la daafuray oo trainingkiisa imika laga soo baxay maantana xaruntii dandamiska baynu u joognaa waxa la yiraahdaa dhagax dhigeedii waa waxaan hore loo haysan runtii